qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Shiniile ayaa iyaguna ka biyo diiday bilaabista kaarka codbixinta isla markaasina sheegay fariin u diray xukuumadda iyo mas'uuliyiinta gobolka City in arrintaasi ay fiiro ka yeeshaan isla markaasina sheegay in ayna u cuntamin in la bilaabo kaarka codbixinta maadaama dhibaatooyinkii wali la soo afjarin galbeedka gobolka City ka socday waa kuwan qaar ka mid ah oo nooga warbixinaya dareenkooda ku aadan bilaabista kaarka codbixinta ballan qaadana mijaboorniga hadii Shiniile loo soo sameeyo inaan gubi doono jeexi doono هذا اللي قبل أول وقت ورقة وين تحتاج واقص دوني ما ينو دور شلا دوني ما ينو دور شلا صوتي كان هنا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وآذن علي حسن وحان كور بحنايا dhibta ka jirta galbeedka waxa weeyaan galbeedka dhibaatay ka jirto dadka yaga la leenayo oo moodkayga dibadda yaalo oo dhaawacaygu dibadda yaalo maanta doorasho sidee la igu keenay oo waxa weeyaan wax ku dooran la oran waxa kolkuu qofku xorriyad haysto oo nabad haysto oo waxa weeyaan degan yahay ay dawladda sare ay og tahay ayuu wax doortaa oo damiirkiisa wax ku doortaa ku codeeyaa oo waxa weyn xildhibaanadiisa uu halka ay u tagaan laakiin maanta aan dhibaato weyn galbeedka gobolka City dhibaato weyn baa jirta kolka waxa weeyaan anagu inaan maanta doorasho aan qaato oo wax codeeyo oo kaar goosto ima banaano dhibtayda dawladda dhexe way arkaysaa waxba kama qabanayso kolka waxa weeyaan dawladda dhexe ee noo dhaxaysa haday yadiiba la safanayso ay leedahay Soomaali Ethiopian maaha anigu doorasho maanta ima banaano dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan meel kasta Soomaali joogto galbeedka City in loo kala hadhin waxa weyn hal halgamo waxa weyn han soo ridana dhulkeenni waxa weeyaan meelba cidba uma deynayno waxa weeyaan dhulkeenno soo wada ceshano ayay doorasho noo banaanta ee doorasho wax la yiraahdo nooma banaano nin kasta oo fadhiya sheekada laga kaco hal halgamo dhulkeenna soo ridana baan leeyahay Muuse Aadan Cali Waleera waxaan ka hadlayaa dhibta ka taala gobolka City galbeedka gobolka City taayo lagu xasuuqmay oo meydkeegii iyo dhaawacayagii iyo dhimashadeedii ay dibadda maanta taalo doorasho qaata waxaan yeelayna ma dooran karno ninkii xasuroona qalbigiisu uu fadhiyay ee nabad ku fadhiya ayaa wax doorta ma dooranayno ma yeelayno taa Soomaali haddii la yiri Itoobiya kamid ma tihid dawladdii dhaxayada oo daawanaysa dhibta meesha ka dhacday ay tiri Itoobiya kamid ma tihidina deeha run Itoobiya kamid ma nihin nagu waxaan moodaynay dawlad dhaxayna dhulka ka jirto inay wixii dib meesha ka jirtana ay ka dadka ummadda iyada u dhaxaysay kala dhawday ahayd iyada oo isku daawanaysa oo umulaha lagu dooxay oo cubadkii lagu gowrgowracay 700 oo qof la gowrgowracay oo maantana waliba la dafirayo ay shalayna dawladda dhaxayntay canfar dhex timiday ay 50 qof ka dhex qaadatay intii kalena ay ku dhex jirto wali mishiga oo meydkeeygu wali dibadda yaal doorasho qaata ma yeelayno ma wada noolaan karnaba haddaan wada noolaanayno maxaa marka hore calanka lagala dhex doono lagala dhex geynay anoo la hadlay waliba kuwa maamulka naga ee deegaankayga anoo la hadlay maxay calanka la dhex doonayeen inay ugu dhex geynayeen maantana doorasho qaata dhulka hadda la iibiyay baan haddana ma aragtay doorasho aan sameynaa waa la iibiyay dhulka saddexdii maahayna 5 kala wali la sii iibiyay waxaan qaadanayna ma qaadanayno islaan quri haday naga hadhana waan ku dhimanaynaa taas mana yeelayno assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim doorashadan imika la sheegay ee arkayno maad aragtay boosahan dhulka la dhigay annagu doorashadani waan qaadacnay mar hore aan qaadacnay waan ka wada hadalay duqayda iyo odayaasha deegaanka dhammaan waa laga wada hadlay mana imika tii baan ogeeyna ma ogin kuwan imika lala cararaya hadda lala guuray taasi baan fadhinaaya taasi doorashana isku meelba maaha dhul baa maqan dad baa dhintay dad baa la xasuuqay dhul baa maqan ma aragtay ma karayno doorashadan waxa watana waa dad ula kaca waa daba dhilif anagu mana aaminsanin inay tahay dad muwaadin inuu doorashadan wato assalaamu calaykum waraxmatullaah
أنا وحي فكر كايجا وحلاي ما أنت ضد كايجي وأميد كوجي دول كيالو وأميد كايجي ساودا سين إثيوبيا تصا أننا نروح سوق إيسا أننا عن فرما وحنا لا تقالم يسوي إثيوبيا وحنا لا تقالم يس مركا ما دام إثيوبيا سان ولا تقالم يسوي ضد كايجي وأميد كايجي سان الله ضاحي دورش أننا ما أنت نوم بنان هذين عديتي عند فوق كدعين أننا واحد دورش نوم بنان ما جرتان له إثيوبيا داون وانا رغني دقي منو ولا رغنو ناسينا وحمد ورنين كون حلبانا اسكو سو شرحينا guud ahaan kaarkan codbixinta oo habkii ugu dambeysay la rabo in laga diiwaan geliyo gobolkan City ayaa haddana waxa xaniban ilaa iyo 32 goob doorasho isla markaasina guddiga doorashooyinku ayna ka qaban wax doorasho ah isla markaasina waxa arintaas ay caqabad ku noqon doontaa mustaqbalka tuulooyinkaasi oo la rabo in loo gooyo sidii kuwii horeba dhibaatooyinka looga dhaxabuuray deegaankaasi odacaliga